aayadda markay soo degtay waquuduha annaasu walxijaara markuu nebigu aayadda ku akhriyey in xabashiga nebiga hor fadhiyey majliskiisa lilma ayuu sii daadiyey uu ooyey oohintiisiibuu ishaysan kari waayey ilaa jibriil ka soo degay calayhi salaam yaa muxamed kan hoostaada ku ooyeye waayo markaasuu yidhi yaa jibriil waa adoon reer xabashaa oo ahlulkhayr oo mu'mina aayaddaasaan ku akriyo uu adkaysan kari waayey buu yidhi markaasuu yidhi yaa jibriil yaa muxamed ilaahay wuxuu yidhi wacizatii wajalaalii wairtifaacii fawqa carshii laa tabkii caynu cabdin fi dunya min makhaafatii ilaa akthartu daxikaha fi ljanna ilaahay baa le sharaftayda weynidayda carshigayga sare ayaan ku dhaartee addoommahayga ka mida adduunyada dusheeda ma ooyo cashadayda lama ooyo haddii la helase maalinka la qatan yahay la qaawan yahay qiyaamaha ayaan qosolkiisa badyaaba ilaahay yidhi 60 sano ayuu ku dhammaysanayaa taacadda ilaahay iyo cabsidiisii iyo khawf iyo khashyad iyo bukaa abaalgudkiisu wuxuu noqonayaa maalinka la qatan yahay la qaawan yahay ayuu carshiga hoostiida kursi loo dhigaya uu qoslaya allah inaga dhiga kuwaas fadadkii hore qulubtoodu markuu iftiinku gale nuur aliimaan iyo nuur alcilmi iyo nuur alqur'aan iyo nuur alhidaaya markay afartaa nuur qalbigooga uu saameeyey aakhiradii baa u caddaatay qur-aankay fahmeen waxyigii bay fahmeen cumar iyo abubakar markuu nebigu intiqaalay calayhi salaatu wasalaam ayay yidhaahdeen abubakar baa ku yidhi cumarow ummu ayman inooge hanbuuqane sidii nebiguba u ziyaaranaya hanu ziyaaranay inooge markaasuu wayse soo raaceen ummu ayman bay u yimaadeen markaasuu mar alliya markay aragtay abubakar iyo cumar oo wada socda ummu ayman way lilmaysay markaasuu abubakar baa ku yidhi yaa ummu ayman miyaanad ogeyn nebiga ilaahay agtii inay u khayr badan tahay ma nebiga waad nagu xasuusanaysaa macnuhu weeyaane waxay tidhi waan ogahay nebi maxamed alla agtii inay u khayr badan tahay waan ogahay waxaan la ooyay geeridiisa kama ooyine warkii samada nooga imanayay baa naga go-ay bay tidhi cajiib bal ummaddu siday qur-aanka ugu xidhneed u fiirso dhegayso oo faham gabadha walaasheeda muslimaday zamanka dadku siday qur-aanka ugu xidhnaayeen eeg rag iyo dumar maantana maxaa lagu xidhan yahay maanta iimaanku waa maxay takdiibun binnadar wa tasdiiqun bilkhabar waxay naf isho arkayso dhan beene waxa samada ka yimid ee warana rumee hada huwa aliimaan qur-aanka iyo xadiiska rumee warkoogana qaado wixii labadaa ka baxsanna ha yeelin maxaa yeelay waa been waxba kama soconayaan labadaasunbaa dhaba labadaa warkooga inaad qaadatana farad bay kugu tahay dadkii markay warkaa qaateen adduunkan iyo aakhiro way ku liibaaneen marka nolosha adduunyadu maxay tahay ba walaalayaal maxaa la iskugu daalin ba qadra daruura adduunyada ka isticmaal ha dhex degin guri bilaa musqula ma dhex karto laakiin musqusha la dhex seexan maayo markay xaaja ku qabato unbaad gali waad ka soo bixi haddii uu yidhahdo qofku ka warrama intuu firaashkii qaato yidhaha musqushaan dhex seexanaya maxaa la odhanayaa adduunyadu waa caynka haddii uu yidhahdo qofku tanun baan aqaanaa tii dambe ma aqaana ee qorshahayga way ka baxday tanun baan aqaanaa hadduu yidhahdo waa majnuun uu waalan yahay qofkaas in la dabiibuu u baahan yahay adduunyada isticmaal lama diidano laakiin sideed u isticmaalaysaa sida ninka guriga le musqusha uu isticmaalo adduunyada u isticmaal qadra daruura adduunyada ka qaado qadra daruura meeshaad u socoto waa aakhiro weeyaan hayloobin ha halmaamin arsaaqada kasbiguna inuu ku dhaafin daacadda ilaahay arsaaqadii kasbigaagu inuu ku seejin الرزق بقدر المقدر باليدي أرزاقده وأنت لا يكون قدرين ويان واحد زيادة مهلس أرزاقده وأنت لا يكون قدرين عالم كان وعالم ير مرك الله يجا عالم كقبرك عالم كقبرك مرك الله يجا عالم كقيامها ويرانا يا عالم كقيامها مرك الله يجا عالم الجنة والنار عالم كسنة ويرانا يا سنة لكن محل لغو بدبادايا waxa lagu badbaadaya halkana laga qaadanaya ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا
فاحفظ لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا إلهي إن ساعر وحيري إن آدنوا ما لنتي أدويدا دمنيسي ما لنتي أدويدا إيمانيسي وحيه إذا كنا شيء أدو أويا دتكون أكتر لا يفرحسينهين عنو قبركو دلنا يو بغاق وقيلي يحتقوا لكن دتكون يفرحسينهين فاحفظ لنفسك نفت هذا انت أدنوشه إلاليو أمرك إلهي كو إلاليو دينت إلهي إلى السؤو إيمانك إلى السؤو سلان نمد إلى السؤو أمرك إلهي هسيدين سمال انت دمانيسو هذا دويد وقتك تهدقوا فرحسن دتكون أكتر يكو أويان دتكو والله وضع ننا دويد وحكتك يسوقوا فرحسن ننا ومستريح ننا ومستراح ننا وننا دويد اللوغة الرحيي ودارتي آخرة الرحة دي بالله قادي ننا دي مشيدي سمركو دي تددكي بكر رحي سنايا هبل مد انتها قاربا ودنا يبقوا دي تكاسي في سناوي بوها يبقوا دي ننا ونن مستراحة الدويد باللوغة الرحيي عالم التعب بالله قادي عالم الراحة يا لقيي عالم كي وحي بني آدم كوبهنا لقد ما يستري بالله قادي محايا إلى الدويد نلشهد مد ما يسترنو هذا الشباب تاي بري واد جبوبي هذا ما انت عافمال قبت بري واد بكوني هذا ما انت غني تاي بري واد فقيروبي هذا ما انت مروقسن تاي بري واد هذا ما انت فرحسن تاي بري واد مروقوني هذا ما انت الشباب تهينا بري واد جبوبي هذا ما انت نوشاين بري واد من الدويد مد ما يستر ميسو لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان إن هذا هدي لسي تك ذهب والسعودة بو نبي يقولي كل بعض بو جعلان بو يري هدي كل بعض لسينا قصد حاد بو جعلان بو يري إن هذا أفقي سوحك لما بو حيانه قبري مركا اللي قليه عيد اللي قرون بو درقابو رسولكو يري الدويد اللي ما درقو ما درقيس حايا اللي لو قمت سنة قلين بقى شهوات وحي بني آدم فأبا هاي الدويد اللي قمت ما يسترين دار باجرت اللي قمت ما يستر وحي نفسه أبا هنتحي هذا الصباح دي بلو فيرس مقالة دا ضوطون كمالها ناتر هذا سانتر فيل بنرانكو وسط المدينة وضد هانويجي وسعت مقالة دا برتمهيجا أيها الصباح دي مارك تاني الرشور والزحمة دا حداث رادتك هالكيت تجيسان وحي كلها ينوان شغت تجينا قلبتنا وضد كلها يا الزحمة دا وعريريا هذا ترى هالكيت تجيسان ويقول لي والراحة تجيا قولي يجيب تجيا غيرك يجي ورد يجيبنو تجيا ماشي الشغادنا واميل قونية ماشي الراحة واميل قونية الدويدن ماشي اللي قول راح سنة معها هلك الشغال لو يمدي ماشي الراحة والله نقندونا إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد بأن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا تصحوا لا تسموا أبدا تنعموا لا تبأسوا أبدا تشبوا لا تهرموا أبدا أهل الجنة وبرسولكم يري مركي الجنة الجلان أفر شيء الله بشارين يا وعلى رنا أهل الجنة ما أنت اللي قبل أبا واحد ليه النلل أدي مشد دم بلهين شباب نمو أن قبوا دم بلهين نعمد أن دباسة دم بلهين عافمات أن حنون دم بلهين بالورنا يا أين الدنيا حديث النبي كشيك يا ابن مسعود وريي يا أذنى أهل الجنة منزلة جنة دسك القلية كوجود درجير بالنبي مالك الشيكي حبيبي وأنن كسر بحيا جنة بالنبي يقول جنة كسر بحيا قرقورة بك كسر بحيا الباب كي جنة إلهي بهر إيمانا يا إلهي بأورنا يا عبدي أدون كيجيو أرضو جنة قلوة تاسة الباب كي جنة إيمانا يا إني يسيب الله قدك يا جنة إني بحسنتي مرقص نقونا يا رب جنة قل يقول تري ويبحدا مانا كدك ما هيست مرقاس لا أورنا يا مبحدا أرضو نقو قل حدنا إيمانا يا مر لباد مر صدحات مرقي أفراد إلهي أورنا يا أرضو جنة قل أو تقو قل جنة الدوية دي يتوبان كيد بالله ده كيلي قاسي الدوية دي أي مسا توبان كيد وصاحة أرلد ويان أما واحد جنة يا لا الدوية ما يلين ما يلين الدوية محا يلا مركاسو أورنا يا أتسخر بي إله ما يقول ده ليسا أو تضحك بي من سوادقو قصل صادق أبو بكر كيه مسكح دي سي كده داعي نرنتاس الدوية دي يتوبان كيد بالغوسية سعو إمام قرطبي كتابه التذكير وحو كل شيء نينكاسي مدحوينه marka dawlad loo magacaabo kormeer buu sameeyaa dalka oo dhan buu soo maraa gobolada tuulooyinka distrigada meel ka soo maraa wasaaradaha ninkaasi wuxuu yiri halkan uu ka bilaabayaa jannadiisi halkan uu ka bilaabayaa ilaa dhinaca kale uu ku soo wareegayo
meesha uu mar marana mar labaad isha ku qaban maaye safarka wuxuu ka qaadanayaa 1000 sannadood imise sano 1000 sannadood fayaati wuxuu imanayaa albaabkii jannadu isa soo taagaya xawra alcayntiisiibaa ka hor imanaysa tanduru ilayhi wayanduru ilayha buri ibnu cabbaas way eegi eegmadoo keliya ayaa qaadanaysa buri 40 sannadood imise sanaad dalka joogtaan النظر فد تعانقه ويعانقها وكبوديا ويكسو بوديسا ويسفدغيان والمعانقة قدر 40 سنة بود عبد الله بن عباس معانقته كليا waxay saysanayaan 40 sanadood oo kale وصعنايا مقصدي cuntada ay taalay buu fadhiisanaya 700 sano cuntada cunaya bas muddada u yar cuntada cuno 700 sano أين الدنيا؟ حيث يدو حور العين تواكش شكل هنا كله هوانكم ولا فديان بيانكم ولا دغيسن يا محاضرة حقوقنا وشيغنا عجيب نعمة داسا إلى هيدتك مؤمنين تودياريين يطوف عليه 10,000 خادم النبي يقول نكا جنة قال يا دتك جنة قال ugu jagayra ugu faqiirsan ugu faqiir lama dhihi kare ugu jagayar waxa dushiisa dawaafaya buu nabigu yiri 10,000 oo khaadim baa dul dawaafaya khaadimkan kala arki maayo khaadimkan sharaabka iyo cuntada uu sida ku kala masido